نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله su-aasha aan rabay inaan isweydiin ayaa waxay tahay qofka muslimka ah qur-aanka kariimka xaggee ka joogaa iyadoo aan ognahay ilaahay subxaanahu watacaala calaa lisaani nabiyihi muxamedin sala allahu calayhi waalihi wasalam ayuu wuxuu oranayay xadiidu cuhmaan ibni cafaan fi saxiixi albukhaari khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxaa idinkugu khayr badan qofka qur-aanka barta dadkana bara khayriyada ummaddan marka halkaa bilyan iyo ziyaadada maanta dunida ku nool waxaa u khayr badan qofka qur-aanka baranaya ama qur-aanka dadka baraya inta kale khayrka waxaa kaga badsaday dadkaas weeyaan qofka hadduu qur-aanka barto muxuu helayaa oo ajar ah nebigu calayhi salaatu wasalaam dhageyso xadiid anas ibnu malik fii saxiixi jaamici sagiir sheekh naasir kusoo arooriyey xadiidku waa xasan weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu oranayay ina lilaahi ahlayn ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala laba ahal weeyaan ahlu lqur'aani hum ahlullahi wa khaasatu dadka qur-aanka ehelka u ah waa ehelka ilaahay waana khaasadiisii weeyaan waa dad gaar ah ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala sidaa darteeda ajarka aad ka helaysid wax yar ma ah qofka ajarka doonaya maxaa yeeley xadiid abi umaamat albaahili radi allahu tacaala canhu ardaa fi saxiixi muslim ayuu nebigu wuxuu ku oranayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofka waxaa loo dhihi doonaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam iqra'u lqur'aana fainahu ya'ti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih war qur-aanka akhriya kitaabka soo qaado akhri maxaa yeele kitaabka qur-aanka akhrintiisu waxay keenaysaa inuu kuu shafaaco qaado maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamaha qofka uu ka ordayo aabihii uu ka ordayo walaalkii uu ka ordayo wiilkii u dhalay uu ka ordayo hooyadii dhashay uu ka ordayo walaashii uu ka ordayo cid allaaliy ciddii ehel iyo qaraaba u ahayd adduunku uu ordi jiray markay mashaakil u qabsado hadda waa ka ordayaa waxa keliya ee anfacaya maalinta una erga noqonaya ilaahay hortii subxaanahu watacaala waa qur-aanka weeyaan xadiid abu hureyra nabiga ku sheegay calayhi salaatu wasalaam uu oranayay nebigu calayhi salaatu wasalaam yaji alqur'aanu yowma alqiyaama qur-aanku waa imanayaa maalinta qiyaamaha ah markaasuu wuxuu dhihi doonaa ilaahay buu la hadlayaa subxaanahu watacaala fayaquulu yaa rab ilaahayow xulhu qofkan qur-aanka xifdiya ilaahayow xullad u xir dhar u xir fayulbisuhu taaja alkaraama ilahay wuxuu u xirayaa subxaana watacaala taaj alkaraama waxaa lagu magacaabay taaj alkaraama karaamada taajkeediibaa ilahay u xirayaa qur-aanka ma joojinayo mar kaluu ku celinayaa wuxuu leeyahay fayaquulu yaa rabbi xul ilaahayow u xir haddana mar kale ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u xirayaa haddana waxaa loo xirayaa xullat alkaraama taajkiibuu marka hore ahaa haddana xulladii isku joogii baa loo xirayaa nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mar kaluu ku celinayaa qur-aanka ilaahay subxaana watacaala isagoo odhanaya yaa rabbi arda canhu ilaahayow raalli ka noqo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa loo dhahayaa qofkii qur-aanka ehelka u ahaa akhri oo fuul jannadii wayasdaaduu bikulli aayatin xasana aayad walbaba xasano iyo darajo ayuu kor ugu kacayaa ilahay agtii subxaana watacaala
waa sidaas weeyaan. maxaa yeele nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid cabdullah bni mascuud ayuu noogu sheegay saxiixana ah, sheekh naasirna saxiix jaamici sagiirka ayuu ku warinaya, wuxuu oranayay ayuu kusoo saaray, wuxuu oranaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam, man qara'a xarfan min kitaab illah, qofka akhriya xaraf ka mida kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala, falahu bikulli xarfin xasana, xarf kasta xasana ayuu ku helayaa. laa aqulu alif laa mim xarf, lakina alalifu xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun. idin dhihi maayo alif laa mim xaraf weeyaan, laakiin alifku waa xaraf, oo laamku waa xaraf, oo miimku waa xaraf. sidaa darteeda wax yar sahlan ma aha. cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu ardaa, xadiidkii fi saxiixi muslim kusoo arooray ayuu wuxuu oranayay, ina allaha yarfacu alqur'aana, ina allaha yarfacu aqwaaman wayadacu bihi aakhariin. ilahi subxaanahu watacaala yarfacu hada alkitaab aqwaaman wayadacu bihi aakhariin. qoluu ilaahay kor ugu qaadaya kitaabkan qur-aanka ah, qolo kalena ilaahay hoos buu ugu dhigaya subxaanahu watacaala. su-aashiis weydiintale ayaa waxay tahay, aniga iyo adiga ilaahay subxaana watacaala ma kor buu noogu qaadaya subxaana watacaala qur-aankii, mise hoos buu noogu dhigayaa, mise qur-aanku waa naga eed sheeganaya maalinta qiyaamaha. rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhegeyse wuxuu oranayay xadiidkii uu wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baa subxaana watacaala nooga warinaya oo noo tilmaamaya fii suurati alfurqaan. wuxuu rasuulku yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh, waqaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura. ilaahayu ummadaydii waxay ka yeelatay qur-aankani mahjuur, miday ka hijroodaan. imisaad akhrisaa maalintii jus? meeqa mar baad fiirisaa qur-aanka? hilowga aada qur-aanka u hiloobaysa intee dhan yahay? waxaadna ogaataa qofka kitaabka qur-aanka intuu kala furo qur-aanka kitaabka ka akhriya, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa raalli ka noqonaya. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid sheekh naasir uu ku xasaninaya fi saxiixi jaamici sagiirka ayuu wuxuu oranayay, man sarahu an yuxiba allaha warasuulah falyandur fi lmusxaf, ama falyaqra' fi lmusxaf. qofka jecel in ilaahay rasuulkiisa ay jeclaadaan, ha fiiriyo qur-aanka. marka fiirinta kitaabka ilahay aada fiirinayso ood ka akrinayso, ilahay baa kugu jeclaanaya, rasuulkiisaa kugu jeclaanaya. naftayda iyo tiinab waxaan u dardaarmayaa qur-aanka, yaynan ka moogaanin qur-aanka, yaanan moogaanin qur-aanka maalintii ugu yaraan dhowr saacadood yaanan moogaanin. waxaa laga yaabaa ramadaankii hore inay kuugu dambeysay qur-aanka, ramadaanka kale uu kugu soo galo adoonan weli akhrinin. taasi waxay tilmaamaysaa qur-aanka inaan ka hijroonnay, waxayna daliil u tahay ayaddii aynu akhrinayna fi suurati alfurqaan, waqaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura. wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin. wassalaamu